Tirakoobyadu waxa ay sheegaan in dadyowga dunida ku nool ay yihiin tira ahaan 8 bilyan oo qof. Se ilaa iyo haatan waxaa si dhab ah loo garala'yahay tirada saxda ah ee dhammaan dadyowgii dunideena ku noolaaday maalintii la abuuray nabiyullaahi aadam ilaa iyo haatan. Ilaha qaarkood ayaa ku tilmaamay dadyowgii dunideena ku noolaaday misna dhintay inay yihiin cadad ahaan 108 bilyan oo qof, halka ila kalena ay ku sheegeen 117 bilyan oo qof. Wax waliba oo ay ahaataba dadyowgaasi oo dhan waxay wada ahaayeen qoraayo, oo qof waliba oo iyaga ka mid ahi waxa uu qorayay buug isaga u gaar ah. Kolkii la daabaco buuggaasina waa uu ku farxi doonaa ama waa uu ka nixi doonaa qofkii, sida aynu ku arki doono aayadda muuqaalkeena maanta oo ah muuqaalkeenu ugu dambeeyay ee tixanaheena Ramadaanka. Gacaliyayaal, inta aan gudagelin barnaamijkeena tixanaha ah ee 30 juz iyo 30 fariin, waxaan idinka codsanayaa inaad nagu soo biirtaan oo aad subscribe saartaan channelkeena. Fadlan ha ilaawina inaad la garaysaan muuqaalkan oo aad gaarsiisaan saaxiibadiina. Mahadsanidin. وحو الله سبحانه وتعالى آية 14 ee suuratu Israa ku yiri: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أقري كتابكاغا adiga ayaa isugu filan maanta xisaabiye. Aayadda ka horeysa aayadda barnaamijkeena maanta wuxuu Allah subxaanahu wa ta'aala inoogu sheegay in qof waliba luqunta loo saaray mas'uuliyad lana soo saari doono maalinta qiyaamo kitaab fidsan. Kitaabkaas oo ka kooban ficiladii iyo waliba hadaladii uu ku hadli jiray qof waliba oo inaga mid ahi intii uu noolaa. Deedna wuxuu Allah subxaanahu wa ta'aala inagu oranayaa akhri kitaabkaaga maanta, isaga ayaa naftaada ugu filan xisaab. Hadda ugu kitaabkani waxaa ku qoran hadal waliba oo aan si dhab ah ama si kaftan aan u dhahnay, waxaana labadeena indhood ku arki doonaa ficil waliba oo aan si kas ah ama si kama ah u sameynay. Deedna haddii ay yihiin kitaabka waxa inoogu qoran camal wanaagsan, waxaa kitaabkaas inagala siin doonaa gacanta midig. Aad ayaana u farxi doonaa inagoo waliba dadka ku oran doono bal fiiriya oo akhriya kitaabkayga. Waan yaqiinsanaa intii aan dunida ku noolaa inaan maalin uu la kulmi doono xisaabtayda. Deedna wuxuu ruuxaasi ku noolaan doonaa baraare, barwaaqo iyo waliba nolol raali laga yahay, halka qofkii dunida inta uu joogay Rabbi subxaanahu wa ta'aala ku caasiyey laga siin doono kitaabkiisa gacanta bidix. Deedna waxa uu ku calaacali doonaa magacay ba'yay ficnaan laheeday inaanan kitaabkan la isiinin oo aanan xisaabteyda ogaanin. Shalaytadeydii maxaan u soo noolaaday, dhab ahaantii xoolahaygii iyo waliba caruurteydii waxba ima aysan tarin, waxaana lumiyay awoodeydii. Deedna waxaa lagu oranayaa malaa'igta qabta oo isku xira gacmihiisa iyo waliba luquntiisa, deedna ku tuura naarta jahannamo. Waxa u bilaaban doono maalmo madow misana aanan dhammaad lahayn. Rabbi subxaanahu wa ta'aala ayaan ka magan galnay. Sidoo kale wuxuu Allah subxaanahu wa ta'aala inoo sheegay in gaalada iyo waliba dambiilayaasha ay aad uga baqayaan waxa ku qoran kitaabkooda. Deedna ay oran doonaan, waa maxay kitaabkaygan aanan ka tegin wax yar iyo waliba wax weyn, misana kulmiyey wax waliba oo aan horey u soo sameeyey. Ogsoonowna saaxiib, Allah subxaanahu wa ta'aala cidna ma dulmiyo, ee qof waliba wax uu tusi doonaa camalkiisa iyo waliba waxa uu u hormarsada maalintaasi. Maalinta qiyaamo waa maalin la abaalmarin doono qofkii weysaysta xilli qabow ah. Deedna Allah subxaanahu wa ta'aala u istaagay saqdii dhexe, soomay bisha barakeysan ee Ramadaan, dareemayna maalmo fara badan gaajo iyo haraad, sadaqo iyo waliba la baxay sako si uu u caawiyo dadka masaakiinta ah. Maalintaasina waa maalin uu daalkii cibaadada meesha ka baxayo, si uu qofku helaya abaalgudkii uu in badan sugayay, isagoona guran doonaa miro aad u macaan. Haddii aynu eegno tirakoobyadana, dunideena maalinba maalinta ka dambaysa waxaa siyaadayo qoraayada qora buwaagta, waxaana sanadkii la soo saaraa ku dhawaad 3 milyan oo buwaag ah, kuwaas oo ka hadlo sayniska, dhaqaalaha
iyo weliba cilmiga bulshada. waxaana intaasi dheer inay jiraan malaayiin kale oo aad u jecel inay ku biiraan saaxadda qoraannimada iyagoona maqaalo gaagaaban ku daabaco jaraa'idiyada iyo weliba qaybaha kala duwan ee baraha bulshada. dadkii hore ee dhintay, qof weliba oo inaga mid ah ilaa kuwa imaan doona gadaasheenna, waxaynu dhammaanteen wadanahay qoraayo aanan la ogeyn oo aanan ku jirin tirakoobyadii aynu soo sheegnay. qof welibana waxa uu qoranayaa kitaabkiisa, kaas oo uu maalinta qiyaamo ku farxi doono, dadkana uu ku oran doono bal kaalay ila akhrista, amaba uu ka argagixi doono uuna ka yaxyiixi doono inay dadku ku arkaan. kollayba ma hurayno inaynu noqono qoraaye bal ka warama saaxiibayaal, haddii aynu qoranno buug aynu jeclaysan doono akhrintiisa maalinta qiyaamo, oo aan ku dadaalno wanaag samaynta kana fogaano xumaan oo dhan, innagoona sii joogtaynaynaa camaladii wanaagsanaa ee aan Alle subxaana wa tacaala dartii u samayn jirnay intii aynu ku guda jirnay bisha barakaysan ee Ramadaan. ugu dambaynna gacaliyayaal, haddii aad halkan inala soo gaarteen, aad ayaad u mahadsan tihiin. waxaan halkan ku soo afmeeraynaa qaybta koowaad ee taxanaheennii 30 juz iyo 30 fariin, kaas oo ka koobnaa 15 muuqaal oo aan ugu talagalna bisha barakaysan ee Ramadaan. haddii uu Rabbi subxaana wa tacaala nabad, nolol iyo weliba caafimaad inagu gaarsiiyo Ramadaanka xigana, waxaynu dhammaystiri doonaa qaybta labaad oo iyaduna ka koobnaan doonta 15 xalaqo. haatanna waxaynu idinkaga tegaynaa, dunidu waa dulqaad, dadaalkuna waa muhiim.